بلا سودو صاحبيال وصاحبك نبلوي cutubka 14aad waxaad ku baran doontaa conditional formatting marka la qurxinayo meelaha qaar xaaladaha la qurxinta oo kale saliska sida loo qurxiyo ayaad ku baran doontaa conditional formatting basic and conditional formatting advanced conditional formatting ayaad ku baran doontaa maanta waxaan rabaa inaan ku tuso sida loo isticmaalayo conditional formatting in Excel conditional formatting markaan baranayno laba ayaa kala qaadayna qayb basic ah iyo qayb advanced ah qaybta basic ah waxaad ku baran doontaa highlight sales rules top and button rules data bars color scales icon sets manage rules clear rules qaybta advanced ka waxaad ku baran doontaa new rule qaabka loo soo dirsado haddaba aan ku hormarno highlight sales rules conditional formatting si aad u tagto marka hore waxaad tagaysaa home tab kadibna conditional formatting aad ku dhufinaysaa qodobada aan rabo inaan ku baro waa kuwan halkan ku taxan waa mid aad u tagaynaa haddaba waxaan ka bilaabaynaa highlight sales rules sida loo highlight gareeyo saleska tusaale number haddii aan u baahanahay inaan highlight gareeyo marka hore waxaan rabo inaan highlight gareeyo ayaan dooranayaa qaabkaas ayaan u dooran karaa ama si kale waxaa leedahay adiga halkan joogo ay control shift leedahay kadibna flaart hoos u jeedo aad taabanaysaa markaad taabato waa ka soo ku dooratay haddii xogtaada badan tahay maadaama hadda xogta yar tahay maxaa sameynaya halka aniga joogo ayaan soo highlight gareynaya waa kaasa okay marka saas aad selection aad u sameyso aad doorato xogta waxaad ku dhufinaysaa home tab haddii meelahan kale aad joogtid aniga hadda waxaan joogaa home ka ayaan joogaa kadib conditional formatting aad ku dhufinaya waa kana flaart ayaa la raacaya waa kana highlight sales rules qaybta inta ka rabtaa mid koowaad fiiri greater than waa mid wax ka weyn less than wax ka yar between u dhaxaysa equal to lamid ah intaani waa isku mid haddii mid ka mid aan qaadanayna marka greater than wax ka weyn oo kale tusaale waxaa dhahay content halkan ku qoray si automatic ah halkan waa bedeli kartaa waxaan leeyahay tusaale content ayaan ka dhigay content wax walba ka weyn highlight ayuu ku saaraya waa kaasa highlight ka colorkiisa hadda waa gaduud si automatic ah waa hawaii light red way halkan waa ka bedeli kartaa waxa leedahay yellow oo kale waa kana jaalo ayuu ku noqonaya halkan waa ka bedeli kartaa green cagaar waa ka dhigi kartaa ama custom adiga waa soo dooran kartaa colorku gooniya tusaale hadda waxaan ku deynayaa gaduudkiisa aan ku deynayaa kadibna okay ayaan dhahay waa kas hadda 60 konton maxaa ka sareeyo 60 ka sareeyo waa kana tusaale haddii aan 10 kan oo kale aan ka sarmarsiiyo konton fiiri wax dhacayo si automatic ah ayuu u buuxinaya tusaale waxaan ku qoray 5 ayaa ku daray oo kale bis 5 oo kale konton 5 waa kaasa highlight ayaa lagu saaray sidoo kale kan haddii waxaan ka dhimana oo konton ka hoos mariyo fiiri wax dhacayo 40 ayaan ka dhigayaa waa kaasa highlight ka wala qaaday marka si automatic ah waa laga qaadaya oo isbedelaya salka waxaad ku sameysay oo dhan okay hadda waxaad bartay number sida loo sameeyo text qoraal sida loo sameeyo isla wadadii hadda waa highlight gareynaysaa kadib conditional formatting aad ku dhufinaysaa highlight sales rules flaart raacaysa kadibna waa kana intaan kuwa u baahan tahay intaan waa lambaro equal between less than kuwan waxa soo baranaysay waa lambaro caadi ah text ayaa rabaa markaad waa kana text contain qoraalka ku jiro Saturday oo kale calaamad ayaa lagu saaray haddii kale waa bedeli kartaa si automatic mid koowaad ayuu soo qabsanaya Sunday ayaan ka dhigayaa waa ka highlight ayuu ku saaraya highlight kana halkan ay ka bedelaysaa waa kana yellow oo kale waa ka soo sameey kartaa kadibna okay leeyahay okay hadda text sida loo highlight gareeyo fahanti date taariikhdan ayadina sida loo highlight gareynaya waa isla wadadii hadda waa highlight gareynaysaa conditional formatting highlight al raisa waa kana date occurring taariikhda la sameeyo shaygan halkaas aad ku dhufinaysaa hadda yesterday shalay maxay ah waa kana shalay mid kana ku ah halkan ka bedelaysaa today maanta taariikhda maxaa waay aan videogan duubayo waa kaasa halkan ka bedelaysaa tomorrow berri maxaa waay waa kaasa next week oo kale raba waa kana waxa leeyahay next week isbuuc soo xigo taariikhda noqonaysa waa kaasa sidoo kale halkan waa ka bedeli kartaa this month hadii dhaad bisha dhan dhamaantood waa ku wada dooranay waa hal bil waa iga dhan
soo jididba in the last 7 days todobada maalmood ee ugu dambeysay waa kuwaasa labadaas haba ay qoran marka intaan maxaa u baahan tahay ani hadda waxaan u baahanahay next week oo kale ayaan u baahanahay halkan kalarka ay ka bedelaya waxaan leeyahay yellow iga dhig ama green iga dhig waxa hartiya ka dhigin kartaa ama light red fill waa ka dhigin kartaa soo kale custom ay halkan ka soo dooranaya halkan waa ka soo bedeli karaa waa kana fill inta dhaho ayaan kalarka aan u baahanahay halkan ay ka soo dooran karaa tusaale soo qaad waxaan rabaa kalarkan oo kale ayaan rabaa okay kidibna okay waa ka saa highlight waa lagu saaray soo kale kalarka iyo qoraalka wax dhan waa bedeli kartaa waa saari kartaa hadeer taariikhda sida loo saaro waa fahantay sidoo kale fiiri midkan ayaa highlight saan u saaraya kadibna conditional formatting highlight waa kana duplicate ku soo laabtay ayaan rabaa halkana sax saaraya yaa soo laabtay waa kana fiiri Saturday waa soo laabatay laba mar Sunday waa soo laabatay Monday waa soo laabatay laakiin kuwan kale ma soo laabanin sida ku fahmaya kuwan soo laabanin meesha duplicate ka aan furaya waxaan ka dhigaa unique waa kuwa kaligood ah marna baan soo laabanin waa kasa waxaan soo laabanin Tuesday Wednesday Thursday Friday kuwaas ma soo laabanin duplicate hadaan doorto waa kasa halkan kalarka ay ka bedeli kartaa kalarka ratid ay saaran kartaa okay hadeer waxaad fahantay sida loo sameeyo number text dates waa intaas ay dhan tusaale kale fiiri top 10 ayaan rabaa oo ka sareeyo 10% oo kale halkan ayaa dooranaya kadib conditional formatting mid labaad ayaa u gudbeynaa waa kana kuwaani waa soo wada baxnay waxaan u gudbeynaa mid labaad oo ah top 10 top ama button rules halkaan aad ku dhufanaysa waa kana ayadina maxaa u qaybsanaysa top 10 items 10 ugu horeysa oo kale ayaa ku dhufanaya waa kana 10 ugu horeeyay had maadaama 10 ay yihiin 10 kaas ay doortay halkaan ka bedelaya markaan waa ka yareynaa lambarka hadii aan badinaan halkaan ka badi karaa hadii aan yareynayn 5 ayaa raba oo kale waa si yareynaa fiiri 5 markaan geeyo highlight ka kasa waa lagu saaray halkaan kalarka ay ka bedeli kartaa hadeer 5 ugu sareyso waa kasa waa lagu saaraya okay aa leedahay sidoo kale fiiri hadii sidaan highlight u wada saaro conditional formatting clear from select cells kuwan ii dooran ii qaad waa kana top 10 waa kana bottom waa ku hoos waay bottom 100% inta hoos waay above average inta ka sareyso waay average ka sida ku ogaanaysa hadeer waa ii dooran tahay fiiri marka saas oo kale wada doorato qaybtan hoose fiiri average ayuu ku siinaya waa 27.5 ayuu ku siinaya above average halkaas ku dhufanaya top 10 above average waa kasa below average wax ka hooseeya above average ku dhufanaya yaa ka saray 27.5 yaa ka saray 35 waa kasa mid ka hartid ayaa ka dhigan kartaa adiga waxa u baahan tahay ayaa ku xiran tahay data baris asigana si loo sameeynaya waa wada dooranaysa halkaas ku dhufanaya waa kana data baris labadaas qayb ayuu kala leeyahay qayb gradient file ah iyo qayb solid fill ah kan color buuxo way kan laba color isku daray way kalaradana wax soo bedel kartaa kan hadda fiiri waxa way blue cagaar waa kana waa intan waa gradient mid ka hartid ay saar kartaa sidoo kale kan waa color ka caadiga waa buuxo way fiiri solid ay loo yaqaan fill kan gradient midkii ku qanciyo ay dooranaysa sidoo kale fiiri lambarkan hadii aan badiyo asigna waa badanaya fiiri 100 ayaan ka dhigaya 100 markaan ka dhigo waa kasa hadii aan ka yareeyo 100 oo 9 aan ka dhigo waa kasa asigna xoogaha waa soo yaraanaya sidoo kale 80 ayaan ka dhigaya fiiri waa kas kan ugu dambeeyay hadii aan yareeyo oo aan 10 ka dhigo fiiri asigna waa yaraanaya si automatic ah waa la soconaya macnaha xogta meeshan ku qoran okay hadeer color scales asigna loo sameeynaya waa wada dooranaya conditional formatting waa kana color scale coloradaana mid ka rabtaa in lagu sameeyo halkaan uu siki halkaan ku dhufanaya color scale colorkan hadeer wuxuu ka bilaabanayaa gaduud ayuu ka bilaabanayaa si sheey qoran ahaan fiir green ayuu ka bilaabanayaa kuliyaha cagaar ayuu ka bilaabanayaa oo meesha hoose ayuu ka fiirnaa mar walba kan muxuu ka bilaabanayaa red gaduud ayuu ka bilaabanayaa kan muxuu ka bilaabanayaa green ayuu ka bilaabanayaa marka isbedelka halkaas ka dhacayo waa arki kartaa ani hadda waxaan rabaa midka koowaad oo kale gaduudka midka u yar inaan dangerous laga dhigo midka ugu badan cagaar laga dhigo ayaan rabaa midkaas ku dhufanaya
waa kasa hadeer 10 ayaa u yar kan waa xogaho normalka kuwan waa kana kuwan waxa waay waa high waay mid walbo midka ka haysan yahay kalarka ay kala siinaya iconiska asigana waa kana waa wada dooranaya conditional formatting kadibna iconka asigana waa kana qaybtan waa directional meesha u socoto ayaa fahmaysa kan waa directional waay kan waa shapeska kan waa indicatorska calaamadaha digniinta sax iyo qaladka la yaabka waa kuwaasa rating kan waa kana fiiri 5 starska mobile maaragtay daatada maash lagu fahmayo kan oo kale waa 3 quarter waay kan waa kana boxesidan mid ka rid ayaa door karta marka tusaale ka soo qaad falaarahan ayaan doortay halkaas click ku siinaya markaan click ku siiyo halkaan maxaa ka arki kartaa falaarta hadeer hoos ay u socdaa midaan waxa waay degrees ay wada kan waa normal waay kan waa sida normal ah kan waxa waay high waay sidoo kale xogtaani waxaad ku sameyn kartaa sort waa ku sameyn kartaa adigoo adeegsanayo conditional formatting qaabkee u sameynaya tusaale ka soo qaad waxaan rabaa hadeer kuwani cagaarka ah inaad kor soo marisi ayaan rabaa sidee u sameynaya waxaan tagayaa data tab ayaan tagayaa kadibna sort halkan ayaan soo dooranaya maxaa rabtaa inaad sort ku sameyso aniga waxaan rabaa hadda iconiska midkan ku qoran yahay ayaan rabaa maxaa rabtaa qaabkee rabtaa inaad u sameyso aniga waxaan rabaa conditional formatting icons halkaas aad dooranaysaa kadibna kan midka rabtaa jaalla ma soo hormarsiinaysaa ama gaduudka ama cagaarka soo hormarsiinaya kadibna okay waa kaasa cagaarkii kor ayaa soo maray gaduudka ku xigsaday midkii ku xigsanayeen waa ku soo bedeli kartaa waad xor u soo baratay waay sida loo sameynayo sorted haddii aan tiraayona mid ka mid ah waa wada dooranaya kadib conditional formatting clear waa kana clear from selected waxa dooratay saliska ayaa tir kaligeed waay midkaas haddii aan ku dhufto waa kana wada baxaya haddii aan u baahanahay kuwaan oo dhan mid inaan u dirno ayaga dhan hal mar wada tiro maxaa sameynaya halkaas ku dhufanaya conditional formatting kadibna clear kadibna waa kana clear rules from entire sheet waraaqada dhan ka saar wax walba ku jiro ka saar halkaana ku dhufanaya waa ka saar ayaga dhan waa wada bixeen waxaan filayaa hadeer inaad baratay sida loo sameynayo highlight cells rules top and button rules data bars color scales icon sets sidoo kale clear rules manage sida loo sameynaya manage haddii aan rabo inaan sameeyo tusaale ka soo qaad midkaan aad dooranaya conditional formatting mid ka mid ah ayaa iska dooranaya fiiri waxaan dhahay hadeer less than wax ka yar 50 ayaan dhahay okay hadeer wax ka yar 50 waa lii dooray 40 ka yar oo 20 ka yar oo 30 kuwana ka yar haddii aan u baahanahay inaan wax ku daro ama wax ka bedelo midkii hadda aan doortay qaabkee u sameynaya waxaan isticmaalayaa manage rule halkaas ku dhufanaya kadibna manage rule waa kaasa marka meelaan kala joogto kuma soo baxay laakiin salka ayaan dhex jooga kadibna maxaa rabtaa inaan manage ku sameeyo midkaan ayaan rabaa inaan manage ku sameeyo waa dooranaya kadibna edit ayaan leeyahay marka edit dhaho waa kaasa wax rabo ayaan halkaan ku dari karaa hadeer less than ayaa meesha ii furan halkaan furaya waxaan leeyahay less than not equal greater than queen greater than or equal less than or equal ayaan rabaa waa kaasa kadibna okay leeyahay okay apply was dhigi kartaa laakiin apply okay oo si leeyahay konton hadeer waa kaasa waa lagu soo daray waxaan filayaa inaa fahamtay manage rule clear rules waa fahamtay new waxaan gudbaynaa marka advancedka qaybta advancedka ayaa gudbaynaa oo ah new rule sida cusub loo soo darsanay hadeer kuwii aad sameynayso dhan waa kuwa diyaarsanaya ahaan sidee mid adiga aad abuurayso qaabkee loo soo darsanaya qaybtan ayaa u gudbaya marka advanced qoran tahay confirmation midka koowaad waxaan sameynaynaa highlight one column value hal column ayaa highlight ku sameynaynaa kuwani waa top product halkan ku qoran QR code quantity price ay halkan ku qoran waxaan rabaa midkii inta lagu qoro inuu highlight hore ilayga saaraa rabaa haddii xogta badan tahay oo kale search bar aad isticmaalayso midkii aan halkan ku qoraba inaa highlight hore ilayga saaraa rabaa aan raadin midkaa waaye aan soo bixin ayaa rabaa sidee u sameynaya marka hore waxaa rabta inaa highlight saarto ayaa wada dooranaysaa kadibna homeka aad tagaysaa conditional formatting kuwani waa soo wada baratay waxaan ku dhufanayaa midkan ku qoran tahay new rule cusub soo darso kadib kuwan waa isticmaal kartaa kuwan waa
ayagana waa kuwa hor u diyaarsan waayo kuwaan ma rabi aniga waxaan rabaa mid formula ayaan rabaa midka ugu dambeeyo aad dooranaysaa ku qoran tahay use formula kadibna halkaas ayaa ku qoraysaa formulaha aad u baahan tahay tusaale waxaan u baahanahay mar walba formula la qorayo waxa laga bilaabay equal ama yusawi kadibna maxaa rabtaa inaad soo doorato mobile ayaan rabaa markaa soo doorato waxaad hore usoo baratay absolute hadda dollar sign-kan ayaan rabaa inaan ka bixiyo qaabkee u bixinay haddeer middaani waa mixed middaani waa absolute waay mir rabo ana absolute inaan ka dhigo waxaan rabaa mixed ayaan rabaa mixed marka laga dhigayo laba qaab waa isticmaali kartaa inaad qabato f4 ama fn f4 inaad qabato aad bedesho tusaale fiiri fn f4 leeyahay waa kaas oo isbedeshay dhaxda aad tagtay marka haddii aad doorto bilaaw aad tagtay marka haddii aad doorto waa baxday marka mid ka hartid aad dooranaysaa mid koowaad waa sida caadiga mid kale absolute way mixed way marka mixed ayaa isticmaalaya aniga marka mid ka fudud ayaa jirto oo ah tusaale equal markaan dhaho aan soo doorto dhaxdan ayaan tagayaa kadibna backspace aan leeyahay waa ka tirayaa midda dhaxda ayaan ka tirayaa kadib equal ayaan leeyahay midda waxaan rabo inaan raadinayo ayaan dooranayaa maxaa rabtaa in lagu sameeyo marka intaan wada soo dooratay format ayaa ku dhufanayaa kadibna maxaa rabtaa in lagu sameeyo waxaan rabaa in highlight la saaro highlight nooca rabtaa waxaan rabaa tusaale cagaarkan oo kale ayaan rabaa in laga dhigo kadib okay leeyahay okay haddeer waxa halkan ku qoran mobile waa kaas highlight ayaa lagu saaray halkan waa bedeli karaa waxaan ku bedelayaa fiir mid ku xigto ah camera ayaan leeyahay waa kaas highlight ayaa lagu saaray waa bedeli kartaa waa kaas highlight waa lagu saaray shoes oo kale waa kaas waxaan filayaa inaad fahantay sida loo sameeyo one row haddeer maxaan sameynaynaa entire record haddeer waxaan rabaa recordka dhan rowgan dhan iswato ayaan rabaa inaan highlight saaro entire record ayaan rabaa inaan highlight saaro qaabka oo sameynaa waa isla wadadii hadda waay haddee waxaa dooranayna intaan ayaa dooranayna haddeer waxaa ku darinaa kuwaan markaa dooranayna waa wada dooranayna dhammaantood xogta kadib home tab conditional formatting new rule use formula halkaana ku qoraysaa waxaa leeyahay equal waxaan rabaa inaan raadiyo mobile aad dooranayaa midka dhaxda ayaan ka bixinayaa kadib equal midda koowaad ayaa dooranaya camera ayaan rabaa waxaan raadiyo format waxaan rabtaa in lagu sameeyo aniga waxaan rabaa inaan highlight laga saaro highlightkan ayaa dooranaya ama midkan ayaa dooranaya kadib okay ayaan dhahay okay halkan misaal ujeedida camera waa lagu saaray mobile ayaan qorayaa asigana mobile waa kaasa halkaan furayaa watches waa kaasa asigana highlight waa lagu saaray haddeer kuwaan wada saaray midda saddexaad fiiri waxaan rabaa inaan highlight wada saaro column-ka iyo rowga isla at same time hal mar inaan highlight saaraan rabaa haddeer midkan waa row waxaan rabaa midkan inaan ku daro quantity oo kale inaan ku daraan rabaa tusaale ka soo qaad midkan ayaan ku sameynaynaa waxaan rabaa inaan highlight gareeyo mobile kuwaani productiga iyo countryga halkan ku qoran Soomaaliya Ethiopia Kenya halkan igu qoran inaan highlight-kooda wadata ayaan rabaa haddii aan halkan ku qoro iyo haddii aan halkan ku qoro labadooda inaan highlight-kooda iyo wadataan ayaan rabaa see u sameynayaa isla wadadii hadda waay highlight wada saaranaysaa conditional formatting new rule kadibna use formula halkan leeyahay equal waxaan soo dooranayaa mobile midda dhaxda ayaan ka bixinayaa midda koowaad waa isku mid equal kadibna waxaan rabaa inaan raadiyo clothes oo kale rabaa inaan raadiyo format kadibna waa kaasa color-kan aan rabaa in la saaro middan waa tii hadda koowaad waa soo baranaysay waay marka waxaa kugu cusub kaliya waxaa ku cusub column-ka ayaa ku cusub column-kan saa loo sameynaya highlight wada dooranayaa kadibna conditional formatting new rule use formula midda koowaad waxaan leeyahay equal kadibna waxaa soo dooranaysaa markan waxaa soo dooranaysaa countryda mid ka mid ah waxaan soo dooranayaa Soomaaliya oo kale soo dooranaya midda koowaad ayaa tiraya markan waxaan u tiraya waxaan rabaa inaan ka dhigo absolute cell reference midda waliba dhaxda ah waa soo doortay kadib equal leeyahay midda countryga halkan igu qoran ayaan soo dooranayaa Kenya oo kale ayaan soo doortay format nooca rabta in laga dhigo waxaan rabaa asigna jaalo in laga dhigo okay waa kaasa halkan haddii aan bedelo oo aan ka dhigo wax kale halkan waa bedelmaya tusaale ka soo qaad waxaan ka dhigayaa camera ayaan rabaa inaan ka dhigo halkan ayaa waxaan ku qorayaa camera waa kaasa xaaladda lagu saaray halkan waa bedelayaa waxaan ka dhigayaa tusaale Soomaaliya ka dhigayaa Soomaaliya waa kaasa
highlight waa lagu saaray halkan hadaa bedeshid sidoo kale waxaan ka dhigayaa Ethiopia waa kaasa highlight asigana waa lagu saaray waxaan filayaa hadeer inaa baratay sida loo sameynayo highlight column and row highlight entire record highlight one column value halkaasi ayaan ugu bixinaa advanced basic marka aad sameynayso hadii aan soo koobo halkaas ku dhufo conditional format kadibna waxa u baahan tahay soo dooro hadii aad tuuraysidna dhamaantooda halkaan leedahay clear hadii meel kamid aad tuuraysid waa kana aad soo dooratay hadii dhamaantooda waraaqad ka wada saarayso clear from entire sheet waraaqadan waa ka saarday midaan oo kale asigana conditional formatting clear from entire sheet ayaga dhan waa wada baxayaan waxaan filayaa inaad ka bogatay sida loo isticmaalayo conditional formatting haku maasantay daawashada daawad muuqaalkan fadlan like star ana wadaag asxaabtaada si ay ugu faa'iideystaan hadii aad weli nagu soo bir fadlan ugu soo bir salaam calaykum